ku hadlana waa Maxamuud Saciid weey waxa la dhilgaleen way door iyo huwantoodii Soomaa ma reeraha Sulaan dheerahayn goobaha nafwaaga dagaalkana way ka sutan yihiin dagaalkii laascanood baa la ogaa dagaalka cali miskaad baa la ogaa taariikhay ka dhigeen hadda ma ogta dagaaladii hore 91kii 93kii dagaalada waxa way taariikhay ka dhigeen baa la ogaa waa la taariikh weey hadda quwadihii iyo midoobay maxaa laga filan karaa qiiq iyo hoy baa ka kici doona Erigaabo inoo balana insha Allah taala Erigaabo warkii isku soo wado waa gala Erigaabo way warsagale dhul baahante waa gala Erigaabo way wax kala lagu wada hadlay maanta waa gala Erigaabo warsangeli gala Erigaabo dhul baahante gala Erigaabo war farxad leh ayaan idin hayaa qof kasta oo warsangeliya ama Maxamuud Hartiya ama Saciid Hartiya oo dhul baahanta muuqaalkan hadaa daawatay si shargare waa kugu amaano meel dheer ka tura muuqaalkan waxaan faahfaahin ka siinayaa shirka ku soo gabagaboobay magaalada Baran xarunta suldaanka guud ee Hartay Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaam Suldaan Maxamed Cali Shire shirka iyo go'aamada soo baxay warsangeli dhul bahante oo qaawanaanta ku wada hadlay arinta Erigaabana meel isla dhigay qodobkaas faaqidi doona si shargare meel dheer gaarsii qofka soo Hartiya ama D5 muuqaalkaas gaarsiyo magaalada Baran muuqaaladii hore aad ku daawateen shir baa ka socday laba reer oo Harti kamid ah waliba reeraha ugu miisaanka culusa waliba reeraha Harti ugu waaweyn ka Harti baa la oran karaa baa ku shiray magaalada Baran waa reerka la yiraahdo warsangeli iyo reerka la yiraahdo dhul bahante waxa wada hadal laga sameeyay oo laga wada hadlay nacasna loo sheegi maayo fariino waa ogaa waarinta Erigaabo sidii waxa magaaladaas oo magaaladeeni ahayd ugu waawan lahayn waliba qori caaladii oo aan bariyay riwaayadii walaahow meel la iska dhigay go'aama markaa soo baxay saddexdii bari ugu dambeeyay warsangeli dhul bahante waxay ku jireen waxa la yiraahdo dib habeen wada hadallo warsangeli dhul bahante Maxamuud Harti iyo Saciid Harti baa la soo fariistay oqaashi baa guddiyo hoosaad loo saaray ka soo tara bixiya la yiri waxa la isku raacay oo go'aamada la soo saaray ay ka mid ahaayeen Erigaabo in loo midoobo warsangeli dhul bahante ay midoobaan dagaalka Erigaabo iyo difaaca Erigaabo waa kow difaaca laga midoobo waa labo maalka dhaqaalaha iyo hadafka guudba in laga midaysan yahay waa saddex maadaama warsangeli dhul bahante Erigaabo ay yihiin ehelbeedka Erigaabo ama gobolka Saraagba in magaca ila warsangeli dhul bahante maxaa mideyn kara magac Harti baa mideyn kara waa laba nin oo walaalaha soo Maxamuud Harti iyo Saciid Harti weeye marka waa ilma Harti weeye in magaca ilma Harti lagu galo dagaalka Erigaabo difaaca mar hadii laga midoobo oo dagaalka Erigaabo ay warsangeli dhul bahante ay ka midoobeen waa wixii muddo la raadinayay weeye waa wixii aan muddo ka shaqeynay waa wixii aan muddo badan in la isugu baadi waxa way doona labada reer oo loo kala sheekeeyay waxa weeye caruurta iyo waxa weeye hadii la ku yiraahdo dhurwaaga ismay arag waligood hase hata waa loo kala sheekeeyaa waxa kala warsangeli iyo dhul bahante waa loo kala sheekeeyay isuma imaan karaan ma tashan karaan go'aan ma gaari karaan waaga dhaweeyay warsangeligu shirki Erbo isaaq wareerisay ku xureen warsangeli go'aamadii ay soo saareen watay before go'aamada warbaahinta warsangeli waa reer nabad waa nabad lef moqt warsangeli dhul bahante u kala qoran salaahan maanta qacba ka yeedhay nacabka reer labada reer inay midoobaan cid ka soo horjeeday qacba ka yeedhay waxaan ogaaday research baan sameeyay wallahi been idin sheeg maayo warsangeli dhul bahante marka laga yimaado laba nin oo Maxamuud Harti Saciid Hartiya hase haatee sida ay isu dhaleen labada reer ee abtiga isugu yihiin waa la yaabaa wallahi aad bay isu dhex galeen meelo badan oo degan yihiin si guudna waa laba nin oo walaalaha Maxamuud Saciid weeye haddana waxa ka wada sayid isu guursadeenaysay ma sha Allah isu dhaleen waxay taas ku tusinaysaa inay yihiin dad mar walba isku hadaaf iyo isku aragti ah weeye anigu markaa warsangeli dhul bahante inay wada qayraan oo ay meel wada fariistaan oo isku kaleeysadaan anigu waa soo dhaweynaya go'aanka Erigaabana waa biyo kama dhibcaan Erigaabo in loo midoobay Erigaabo cudud la'aan ma hayn warsangeli dhul bahanta oo ciidan la'aan ma hayn oo tiknikaan ma hayn oo dhaqaalahan ma hayn waxa rabna muqaalifo laba beelood in la helo
mar haddii Suudaan Siciid oo Suudaanka guud ee hartiya iyo garaad Cabdullaahi garaad Salaaman garaad Maxamed meesha ay marayaan oo ay qalinka ku duugeen oo uqaashi warsangeli iyo Maxamuud hartiyo uqaashi dhulbahanto haan ka maqan aanan jirin ay goobta wada fadhiyaan waxa weeye bas weeye oo go'aan ay isku raaceen go'aankaasi waa mira dhalin weeye ha in laga mira dhaliyo ergaabo intaas waa guul weeye hartinimada waan idin sheegay labada reer Maxamuud iyo Siciid harti iyo Maxamuud harti weeye hartinimada walaalaysay Soomaha laba nin oo walaalaa weeye marka dagaalka ilmaha harti ay ku galayaan siyaasaduna waa laga ballamay meel bay la isugu ogaaday taasna ma rabaa details badan u golo laakiin waa adigu meeshii ugu wanaagsaneed bay taallaa taas waa qodob weeye warsagalay dhulbahante taariikhda Soomaaliya way ku suntan yihiin dad taariikh la weeye waxa weeye hadii la kuuriyay taariikhda Soomaaliyeedna ku suntan dhulbahante waxa weeye daraawiish buu haayo hadii la kuuriyay gaal la dirir buu haa Soomaa geeska Afrika oo dhan saameyn weyn bay ku lahaayeen warsangalina sandalad boqortooyada dawlad beed gaamurtay ciidankii ugu horeeyay Soomaali qof Soomaali ciidan u yeeshaba warsangalay baa yeeshay gaar hayaa la oran jiray dhulkooda barwaaqada iyo dhulka waxa weeye badaha iyo xeebaha iyo waxa weeye geela iyo xoolaha iyo petrolka iyo waxa Ilaahay ku banaystay waad garanaysaa labada reer muqaalafo xuma dishay markii hore iyo in laga dhax qadeeyay labada reerba laakiin Ilaahay fadligii hadda taladii Ilaahay waa u mideeyay وحوق إلهي ومديي نقاله إلهي ومديي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وحرمنا أوشة ورسقلي يدل بحنتين ولا لا يروا وهذا واحد يقول كذا الله شجنا يو اللي قط طعم يو اللي ربنا ودول اللي هم مرسين إلا الجليو وين جوي وين جو ورسقلي يدل بحنتان ده أنتوا أكون شرتها وردل كينا يديجان كينا حمان هدي لهاي تفرار وحيد هاي ونسوا مرة ونسوا عرينا فالحمضة وأقول لك إن وأقول له مو رسيه ميزانية ده وحوي لا يرهبه نقارا عن لحين وحوي تذكر قيب سن وحوي ما قرأ ما أنت مخالف في عنا إنه هلا يمنه وأوشي ده اسمه ده إنه ما أنت وبعدين يورسقلي أسألك تشرين صدق سنة كل بقول بس ما أنت نقول لك ما قطع عليكتان ما شاء الله الحمد لله رب العالمين إلهي بقى ما تذكره وحوي جوشاس يمني ما داسنا سوى تشيرها لا ولا نعبه أنت كشقيسي aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin intaas waa qodobada soo baxay marka ee difaaca ergaabo ilaa goojka adag lagu qoray maxaa ka dhalan kara waxaan isleeyahay anigu kow waxaa ka dhalan kara in abaabul ciidan oo dhammaystiran u bilowdo iyo in guluf colaadeed iyo malafka ergaabo sida tahay loo wajo ergaabo iyo dhulkaasina hawgalla ay ka bilowdaan arrinta kale magaalada ergaabo ee xarunta gobolka Sanaag go'aamadani waxay sabab u noqon doonaan inaanay mar dambe ku amarto kaaleyn doonin jabhadda khawaarijta ee argagixisada Islam warkaasi uu ku daayay dadkii deegaankan ehlu beedka ka ahaana ay midoobeen difaaca ergaabo midoobeen qodobkaasina waa qodobkaas weeye arrinta kale aan isleeyahay qodobadan way ka dhalan kartaa marka ergaabo cadawga khawaarijta laga sifeeyo iyo kooxaha argagixiso waxay horseedi doontaa qodobadani in beelaha waaweyn ee harti ee warsangeliga dhulbahante inay isu yimaadaan waxa weeye waxay ku midaysan inay wada dhistaan maamul weyn oo ballaaran waqooyiga Soomaaliya ka doobiya oo leeyahay waqooyi bari Soomaaliya inuu halka ka dhismo oo ay marka talada ergaabo aynu faralka ergaabo iska ridno in labada reer isu yimaadaan hadda waxa weeye wixii balantii iyo waxa weeye qodobadii ay maanta ku heshiyeen ay ka mara dhaliyaan halkaasna laga dhiso maamul weyn oo reerahaasi ay leeyihiin sababta weeye dhulkooda cadow baa ku dulaan ku ah dhulkooda waxa la rabaa in la yiraahdo dhul ugu murusan yahay waa inay markaa isku tashtaan waa isku dan isku duruufaya laba nin oo walaala weeye Soomaa ma garat marka waa inay dantu waxay ku jirtaa midnimo dantu ku jirtaa inay si siman wax u qaybsadaan inay is hor fadhiistaan inay ka fakaraan dhaxalka wiilka warsangeli ee Maxamuud harti iyo wiilka dhulbahante Siciid harti qodka ka soo socota inuu ku noolaa mustaqbal wanaagsan matalaad inuu leeyahay in wax kale loo yeerin dhulkiisu nabadgelyo yahay albaabkaasina waa soo xidhmaya absolute arrinta kale waxa soo dhamaanaysa maalmihii adkaa ee la oran jiray SSC waxa way lagama hadli karo waa lagu murusan yahay dadkooda waa kala qaybsan yihiin
ورسقلي البهانته وكل قبسين مشري كران اسمه إيمان كران هو ها الباب كاسنا وصوحد مي وصوحد من الباب كاسنا قيادي دلنتات كهنا وإصونا مات أرنت كلا أود شباب خوارج أرجع سلام أتمتكلي وويق ميسا هذه حالة إيو ساحة وكبح صوما ماش هاسيبت كاسي هذا وتشتان عرقاوة لو كلبح ما ملكاسي نو اسمه قوي بري مستقبلك بعد العرقاوة أود قبل هذا وقوي الصومانية عدة وجود ديجان كبلارن وجود دول كبلارن وقوي الصومالي بقول كيبا كونتونيشن كدكتا وورسقلي البانتوي عدة ساعة وحلقة ويدينية أود شبهات أسرمنا وأي ويق ميسا انت أساس ليه قوان مداس وناكسان يصوب حي ويكدران كرا هذا ورسقلي البانتي دقال الله متل مامو لف هداد مغرج ترهر لو رهر واللبكي وحوي هدي لكوري هرتي iyo daaroodba hadda moogta marka dagaalka Carigaabeen ku balansannahay waa la isku dhaarsaday ugu dambeyn waxaan halkan fariin uga dirayaa qof kasta oo Maxamuud Harti ama Warsagaliya ama Saciid Harti oo dhul bahanta oo wuxuu khibrad ciidan leh hadduu ka maqan deegaanka isoo xaadir cilmigaaga loo baahan yahay khibradada loo baahan yahay dhulkaaga iyo deegaankaaga difaac kaaga baahan magaalada difaac kaaga baahan absolutely jiidaha ciidamada goobaha nafwaaga iska soo xaadiray absolutely intaasna waxa la ciidanka meel fiican bay taalaa waxaan muddo ku taamayay oo ahaa ummadda madaqada ku nool inay midoobaan oo cadowgooda u midoobaan oo ay taladooda iyo dhaqaalahooda iyo maalkooda midayaan alxamdulillah rabbil caalamiin waa ilaahay mahadi weeye war waxaan ku hadalnaa waa Maxamuud iyo Saciid weeye war ii doorow waxaan ku hadalnaa waa Maxamuud iyo Saciid weeye war laba nin oo walaala weeye war waxa shurushur isbahaysiga wata huwanta waqooyi dhulka ka yimid waxa la diriirsay waa labada reer weeye Warsagaliya dhulbaanta la bihiin bay idin sheegay bal gobolada waqooyiga cid ka doobiyaysa ay ugu dhulka balaaran wayaga weeye deegaan tiro degmooyin wax walba waxa la dhilgaleen way door iyo huwantoodii Soomaa ma reeraha sulaan dheerahayn goobaha nafwaaga dagaalkana way ka sutan yihiin dagaalkii laas canood baa la ogaa dagaalka calam iskaad baa la ogaa taariikhay ka dhigeen hadda ma ogta dagaaladii hore 91kii 93kii dagaalada waxa way taariikhay ka dhigeen baa la ogaa waa la taariikh weey hadda quwadihii iyo midoobay maxaa laga filan karaa qiiq iyo hoy baa ka kici doona Carigaabo inoo balana insha Allah taala Carigaabo warkii isku soo wado waa gala Carigaabo Warsagaliya dhulbaanta waa gala Carigaabo wax kala lagu wada hadlay maanta waa gala Carigaabo Warsagaliya gala Carigaabo dhulbaanta gala Carigaabo inoo balana insha Allah taala khayr badan weerarsiray si sheer gareey boqolka